shirka golaha wada tashiga qaran ayaa la filayaa inuu ka furmo Muqdisho. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana soo dhaweeyay mas'uuliyiin uu kamid yahay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Axmed Macalin Fiqi. madaxweyne Laftagareen oo hadal kooban u jeediyay warbaahinta ayaa sheegay inuu Muqdisho u yimid ka qaybgalka madasha wada tashiga qaran. iyadaan kaga mahadcelinaynaa soo dhaweynta diiran iyo sida quruxda badan oo sharafta iyo mas'uuliyadda ku jirto oo aad noogu soo dhaweyseen caasimadda Muqdisho. runtii socodka anaga iyo ujeedkaan u nimid waxaa sheegay wasiirka. waxaan u nimid inaan ka qayb galno shirkii NCC-ga. waxaan ku nimid martiqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu noo soo diray in shirkii saddexaad fadhigiisii saddexaad NCC-ga uu noo furmaayo ajandayaalkii horey u jirayna la dhammaystirayo ayadoo dalka uu ku jiro shaqooyin muhiim ah iyo howlo cusub oo aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed badan u ah la wado sidii loo sii dardargelin lahaa howlaha dawladdana loo sii adkeyn lahaa wada shaqaynta iyo isla socodka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeedna looga wada shaqayn lahaa ayuu yahay. waxaana ilaahay ka rajaynaynaa in guulaha iyo horumarka dawladda federaalka ay bilowday oo ay ku hogaaminayso dadka Soomaaliyeed inuu suurto galo annagana aan u noqono garbihii iyo baalashii suurtagelin lahaa dadka Soomaaliyeed oo dhanna ay midnimadaas iyo wadajirka ay ka shaqeeyaan. aad u mahadsantiin wasiir sida aad noogu soo dhaweyseen gurigaanagii waana kaga mahadcelinaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhankiisa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay inay u diyaar garoobeen soo dhaweynta madaxda maamul goboleedyada iyo wufuudooda oo lagu wado inay soo gaaraan caasimadda Soomaaliyeed ee Muqdisho. waxaan amaantay in madaxweyne Cabdicasiis madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed inuu maantay shirka NCC-da ka dhacay magaalada Muqdisho uu noqdo madaxweynihii koowaad oo yimaada oo annaguna aan ku soo dhaweyno guddi golaha wasiirada ka socda madaxweynaha iyo wafdiga la socda soo dhawaadaan leenahay sida caadadu ahayd badee waa soo dhaweynaa. waxaan rajaynaynaa dalka Soomaaliya marxalad wanaagsan oo kala guura ayuu marayaa oo xagga amni iyo ololaha dib u xareynta ha noqoto ama xagga dawlad dhiskaba. marka madaxweyne soo dhawow waana ku faraxsanahay imaanshahaada. waxaan rajaynaynaa insha Allah maalmaha joogtidna inaad si nabadgelyo ku joogtid shirka aad u timidna uu guuleysto ajandihiisana kolley idinka wax ka wada dejiyay oo shirka dib u xareynta iyo howlaha amniga ayaa ugu xoogan iyo dastuurka iyo waxaan rajaynaynaa marka arrimahaasna dee ummadda Soomaaliyeed inay ugu bishaaraysaan qodobo iyo go'aano wax dhaxalgal ah haddii Ilaahay yiraahdo. ololaha aad wadaana waan ku hambalyeynaa oo dib u xareynta dalka oo Koonfur Galbeed runtii ka curtay horena uga socday haddana aad damacsantihiin oo shaqadaasna waa shaqo weyn oo dalka runtii wax weyn ugu tooran. madaxweyne soo dhawow.